Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta waxaan ka hadlaynaa cashiro taxane inoo noqon doono hadduu Ilaahay yiraahdo. Anatomy head structure-ka madaxa maanta ka hadlaynaa. Skaalka cashirkeena ugu horreyn ka hadlayno waa skaalka. Daboolkan ama qalfoofkan madaxa ku dahaaran. Waxaan ka hadlaynaa muxuu yahay booniska sameeya ama lafaha sameeyo skaalkaasi ay maanta ka hadlaynaa. Insha Allah waxaan kaloo ka hadlaynaa booniskaasi joontiyada joints isku hayo. Sidoo kale embryological ahaan cunuga markuu dhashanayo skaalkaas qaabku ku sameysmaayo, qaabku ku bilaabanayo ayaan maanta ka hadlaynaa insha Allah. Su-aashan ugu horeyso skaalka. Skaalka maxaa waaye marka? Skaalka waa qalfoof waaye. Wuxuuna sameeyaa protection ayuu wuxuu u yahay main organiska. Ma aragta organada ugu muhiimsan ayuu protection u yahay oo kow ka yahay maskaxda, indhaha, nerveska maro maskaxda iyo blood supply-ga oo ma aragta blood vessels-ka xididada oo keena dhiigga ka qaado ayuu wuxuu u yahay protection. Booniska wuxuu leeyahay 22 lafood. Booniska waa kan saa u jeediin. Waxaan ka hadlaynaa waa kan qalfoofkan waaye. Saas soo sheegnay wuxuuna protection u yahay organiskan ka soo hadalna oo indhaha iyo maskaxda iyo blood vessels-ka. Wuxuu leeyahay 22 lafood. 22 lafoodkaas 8 ka mid ah waxaa waaye cranial waa. 14 ka mid ah waxaa waaye fascia waa. 8 cranial magac kale loo yaqaan ayaa jira oo lahayo neurocranialka. 8 cranialka waxay ku yaalaan qaybtan kore halka fascian uu yahay qaybta hoose oo ilkaha qaybta ka hooseyso, sanka qaybta ka hooseyso ayuu noqonayaa. iyagana isku geed 8 ilaa 14 na waa 22. Haddaan ku hormarno 8 cranial booniska. Kan ugu horeeya waa frontal waa. Frontalka waa hal laf waa. Waxaa ku xigo parietalka oo 2 laf ah. Waxaa kaloo ku xigo temporalka oo 2 laf ah. Waxaa kaloo ku xigo occipitalka oo ah hal laf ah. Waxaa kaloo ku xigo ethmoidka oo hal laf ah. Waxaa kaloo ku xigo sphenoid oo hal laf ah. Dhammaan markii la isku geeyo waxay noqonayaan 8 lafood. Saa u jeedin waa kan frontalka, ethmoidka waa kan oo hal laf ah, sphenoidka waa kana, parietalka waa kan oo 2 lafood ah, temporalka waa kan, occipitalka waa u jeedin waa midkaas ugu hooseeya. Dhammaan markii la isku daro booniskani, dhammaan markii la isku daro waxaa waaye cranial nerves ama neurocranialka ay leeyihiin skaalka 8 lafood ugu horeeya waa. Waxaa jiro 14 kala jiro oo fascia ayaa jiro. Dhammaantooda afarta ugu horeeya frontalka, parietalka, temporalka iyo occipitalka la isku daro waxaa loo yaqaanaa calvarium. Waxaa loo yaqaanaa calvariumka. Dhammaan 8 cranial booniska waxaa isku haya joint isku haya waxaa loo yaqaanaa suture joint. Suture joint waa spacekaas oo ku bilaabanayo waxaa loo yaqaanaa frontanella. Frontanella waa membrane waa xuub waa. Xuubkaas wuxuu ka samaysan yahay connective tissue oo ah fibrous connective tissue ay ku samaysan yahay. Jointiskaasi markuu space ku bilaabanayo waa ma aragta membrane markuu wuxuuna ka samaysan yahay membranekaas connective tissue oo ah fibrous ah. Saas soo sheegnay dhammaan boniskan waxaa isku haya jointiskaasna waa markii ilmaha yariska xataa waa laga arkaa waxaa waaye frontanella. Anigu maana suture joint. Suture joint wuxuu leeyahay coronal suture, sagittal suture, lambert suture iyo squamous suture. Coronal suture waxaa waa frontal iyo parietalka la isku daro waa. Sagittalka waa left iyo right oo parietalka waa. Lambertkan waa parietal iyo occipitalka. Squamouskan waxaa waaye temporalka iyo parietalka. Asoo sawir ahaan markaan aan aragno hadda asoo qoraal ahaan ay u jeediin sagittal suture afarta suture-ka aan ka hormarno coronal suture. Coronal suture waa frontalka iyo parietalka waa midkaan u jeediin oo qaybtan kore iyo ma aragta labadan parietalka u dhaxeeya waa coronalka. Sidoo kale sagittalka asagana waxaa u dhaxeeya right iyo left ayuu u dhaxeeya. Keena saddexaad waxaa waaye lambert suture. Lambert suture asi waxaa u dhaxeeya occipitalka iyo waxaa u dhaxeeya parietalka. Kan ugu dambeeyana waa squamous suture. Squamous suture ma laga arkaya sawirkan laakiin wuxuu ku jira qaybtan dhegta agteed ayuu ku jira wuxuu u dhaxeeya temporalka iyo wuxuu u dhaxeeya parietalkan oo qaybtan temporalka iyo parietalka u dhaxeeya. Dhammaan waxaa ka soo baxnay sutureska ay leedahay skaalka sutureska afartii suture aan ka soo baxnay. As embryological ahaan u maana marka qaabka ku bilaabanayo waxaa jira ilmaha yariska waa laga dhex arkaa ilmaha qaybtan oo maskaxda aad ay markay yar yihiin aad ay jilcan tahay waxaan loo yaqaanaa frontanella.
waxay leedahay laba xabo, laba god ay leedahay, waxaa waaye anterior frontanella iyo posterior frontanella. sawir ahaan hadda sawirka hadda markaan soo ceshano saa ujeediin waa kana frontanellaha koowaad waa kan occipitalka gaduudkaas waaye anteriorga, halka posterior oo yahay posterior frontanella. waa idinkaga mahad celinaya cashirkeena koowaad intaanu ku egyahay. cashirkeena labaadna wuxuu noqonayaa inshallah wuxuu noqonayaa cranial nerveska. cashirkeena intaanu ku egyahay wixii su-aale iyo wax ku saabsan dhinaca commentiga nooga reeb. baa kaga mahad celinaya daawashada video. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.